شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن صلى الله وسلم وبارك على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى waxaan halkan ka soo jeedin doonaa xalaqaad kooban oo aan ugu talagalay alla subxaanahu wa tacaala inaynu ku baranno allihiina abuurtay ayna arsaaqayay ina nooleeyey ina dilaya aynu u cibaadaysanayno allaha inaynu baranno dhowr xalqadood oo ku saabsan ayaan insha allahu tacaala halkan ka soo gudbinaya. xalqadan koowaad waxaan si kooban u iftiiminayaa waan uga hadlayaa insha allahu tacaala alle subxaanahu wa tacaala inaynu baranno alle subxaanahu wa tacaala inaynu aqoon u yeelanno alle subxaanahu wa tacaala inaynu fahanno ahmiyadda uu leeyahay ayaynu insha allahu tacaala wax isaga sheegaynaa. waxaa laga yaabaa marka la yidhaahdo ilaahay baa la baranayaa dadku inay yidhaahdaan ilaahay waa acrafu lmacaarif waxyaabaha la aqoonsado waa kuwa loogu yaqaano, laakiin markaad xalqaadkan dhammaysato barnaamijkan aad daawato waxaa kuu soo baxaya aqoontii aad alle subxaanahu wa tacaala aad u lahayd iyo aqoonta hadda aad kororsanayso ayaa kuu soo baxaysa. aqoonta aynu doonayno alle subxaanahu wa tacaala inaynu baranno waa aqoon saamayn noloshaada ku keenaysa oo noloshaada wax ka bedelaysa. waxaan maanta insha allahu tacaala gogol xaadh ku samaynayaa ahmiyadda uu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala inaynu u cilmi yeelanno. markaynu alle subxaanahu wa tacaala barashadiisa aynu ka hadlayno waa mowduuca alle subxaanahu wa tacaala uu inoogu yeedhay. kitaabka alle subxaanahu wa tacaala waxaynu ka helaynaa 30 aayadood wax gaadhay oo alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay iclamuu أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله عزيز حكيم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اعلموا يعني أعلميش وأقاد إنه الله سبحانه وتعالى ذنبك دافه إنه الله سبحانه وتعالى دلقاته inuu alle subxaanahu wa tacaala ciqaabkiisu daran yahay in alle subxaanahu wa tacaala dembi dhaafkiisu badan yahay inuu alle subxaanahu wa tacaala wax walba awoodo. waxaa laga cabiray iclamuu ogaada waa 30 aayadood wax gaadhaya. alle subxaanahu wa tacaala barashadiisa inuu muhim yahay waxaa ina tusaya waa aslu liimaan. iimaanka aynu rumaynayna alle subxaanahu wa tacaala islaamnimadeenna iyo iimaannimadeenna iyo diinteennaba waxaa asaas u ah alle subxaanahu wa tacaala. allana in la barto asaaskaasaad ku adkaynaysa kuu xoogoobaya haddii asaas fiican uu iimaankaagu ku taagan yahay oo alle subxaanahu wa tacaala aada rumaysan tahay oo aad fahmayso magacyadiisa wan wanaagsan iyo tilmaamihiisa wanaagga badan iyo ficiladiisa qiimaha badan iyo xuquuqda uu leeyahay
waxyaabahaasi waxay keenayaan iimaankaagu inuu noqdo iimaan sees wanaagsan ku taagan. markaynu ka hadlayno iimaan waxaa kow ka ah aliimaanu billaah, ilaahay in la rumeeyo. ilaahay rumayntiisuna waxay u baahan tahay inay noqoto mid ku salaysan aqoon alle subxaanahu wa tacaala loo leeyahay. sidaa awgeed ayaa alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur'aanka iyo suwarta marka la eego waxa aynu ka helaynaa suurad kastaaba suuradda ay ka tawxiid badan tahay ee alle subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa lagu sheegayo. aayad waliba aayadda ay kaga badan tahay tilmaamaha alle subxaanahu wa tacaala inay ka qiimo badan tahay. tusaalayaal haddii aynu soo qaadanno marka kitaabka alle subxaanahu wa tacaala laga hadlayo, aayadda ugu weyn ee ugu sharafta badan ee ugu qiimaha badan waxa weeye waa aayat lkursi weeye. sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegayo, saxaabiga ubay ibnu kacab buu weydiiyey maa hiya acdamu aayatin fi lqur'aan, qur'aanka aayadda ugu weyni maxay tahay? dabeedna ubay ibnu kacab ahl qur'aan buu ah. wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabay waa aayat lkursida. nabigu waxa uhi liyahnika alcilmu aba lmundir, cilmigu laabtaada hadagu. jawaabta fiicana uu ku jawaabay. idan waxaan leenahay aayat lkursi waa aayadda ugu weyn kitaabka alle subxaanahu wa tacaala. suuradaha iyo aayaadka waa aayadda ugu weyn ugu qiimaha badan wey. maxay aayadaha kaga soocan tahay? waxay kaga soocan tahay alle subxaanahu wa tacaala tilmaamihiis iyo magacyadiis iyo ficiladiis ayaa lagu faahfaahiyey. allah laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa taakhuduhu sinatu walaa nawm. waxyaabaha ilaahay loo diidayo mana luloodo mana seexda alle subxaanahu wa tacaala. laa taakhuduhu sinatu walaa nawm man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih yaclamu maa bayna aydiihim wma khalfahum walaa yuxiiطuuna bishayi min cilmihi ila bima shaa wasica kursiyuhu الsamaawaati wاlأrض walaa yauuduhu xifduhuma wahuwa alcaliy اlcadiim. tilmaamaha iyo magacyada waynu faahfaahin doonaa insha allahu tacaala xalaqaadka soo socda. laakiin waxaad arkaysaa aayadda waxaa lagu bilaabay allah, magaca alle, waxaana lagu gabagabeeyey alcadiim oo isaguna magac alla ah. allah waa allaha la caabudo cibaadada mutaysanaya. wa huwa alcaliy اlcadiim, allaha sareeya, daatadiisu khalqiga ay ka sarayso, sharaf iyo makaanadiisu dadka ay ka sarayso khalqiga, qadran wa makaanatan allaha u sareeya, cizatan wa quwatan wa ghalabatan allaha u sareeya awood ahaan ee awood kale aanay ka sarayn. alcadiim allaha weyn ee weyninka ku sifaysan. inta ka dhaxaysana waa tilmaamo alle subxaanahu wa tacaala. maadaama aayaddaasi ay koobaabsatay tilmaamo badan iyo magacyo badan baa nabigu ku tilmaamay aayadda ugu weyn inay tahay. xagga suuradaha haddii aynu eegno, alle subxaanahu nabigu calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari ku timi saxaabiga abi saciid ibn اlmucalla waxa uu ku yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam lawacalimanaka acdama suuratin fi lqur'aan qabla an takhruja min almasjid. abu saciida waxaa ku baraya suuradda kitaabka alle ugu weyn ee ugu qiimaha badan inta aadan masjidka ka bixin. dabeedna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay masjidka inuu ka baxo. abu saciid baa weydiiyey oo ihi nabi alla waxaad igu tidhi suuradda qur'aanka ugu weyn baan kuu sheegaya ee ii sheeg. nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam hiya alfaatixa wa hiya sabcu almathani wa hiya alqur'aan alcadiim lam unzil calaya fi اtawraati wala fi اlinjiili miluha. wuxuu nabigu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam suuraddaasi inay tahay suuraة اlfaatixa, inay tahay waxa weeye qur'aanka weyn ee ilaahay uu kitaabkiisa ku sheegay. walaqad aataynaaka sabca min almathani wاlqur'aan alcadiim. qur'aanka cadiimka ah iyo toddobada la soo celceliyey waa suuraة اlfaatixa. waa suuraة اlfaatixa. weyninka ay leedahay baa la inoo jideeyey. maalintii 17 jeer oo salaadaha faralka aynu tukanayno faatixada inaynu ku tukanno. ragcad kasta oo ka mida in lagula yimaado, haddii laga tagana
inaanay salaadaasi ansaxayn. maxay ku gaadhay suuratu lfaatixa mansiladaas? waxay ku gaadhay waxa weeye waa macaanida ay koobaabsanayso. waxaa lagu bilaabay magaca alle subxaanahu wa tacaala, mahadinta alle subxaanahu wa tacaala baa lagu bilaabay, xuquuqda uu leeyahay baa lagu tilmaamay. bismi illaahi araxmaani araxiim waa aayad ka mida basmaladu. magaca alle alraxmaan alraxiim alxamd, mahad dhammaanteed lilaahi rabbi alcaalamiin, ilaaha la caabuday u sugnaatay. mahadintii baa loo sugay, waxaana lagu mahadinayaa sifo kastoo wanaagsanoo uu leeyahay. waa ihbaatu alkamaalaati walfadaa'il lilaahi rabbi alcaalamiin. waxaa la sheegay tilmaamihii wanaagsanaa oo looga mahad celinayo. waxaa la sheegay cibaadada inuu mutaystay waa lilaah. waxaa la tilmaamay rabbiga caalamiinta inuu yahay oo koonkan u maamulay oo isagu uu iska leeyahay oo uu abuuray. alraxmaan araxiim waa tilmaamihiisa waaweyn. maaliki yowm اddiin, waxyaabahaasoo dhan waa ammaan alle subxaanahu wa tacaala la ammaanayo. waxaa la mida suuraة اlإkhlaas, qul huwa allahu axad. nabigu waxa uu ku tilmaamay tacdilu ثuluث اlqur'aan inay tahay. yacni qofku hadduu suuraة اlإkhlaas uu akhriyo waa qul huwa allahu axad, ajarkiisu wuxuu ka dhigan yahay qur-aanka 3 meeloodoo meel qof akhriya buu ka dhigan yahay. waa qiimaha iyo sharafta ay leedahay. waxayna ku timi, waxay koobaabsanaysaa tilmaamaha alle subxaanahu wa tacaala. nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa loo sheegay nin saxaabiya oo suuraddan mar walba dadka ku tujiya ayaa nabiga loo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam. nabigu ninkiibuu u yeedhay, uu weydiiyey, wuxuu ihi liannaha صifaة الraxmaan wa ana uxibu an aqra'aha. suuraddani waa tilmaamihii alle, aniguna waan jeclahay. yani waxaan u jeclaaday waa suurad ka hadlaysa alle subxaanahu wa tacaala iyo tilmaamihiisa. nabigu waxa uu yihi akhbiruuhu ana allaha yuxibuh, u sheega alle inuu jecel yahay, jannadana inuu gelaya u sheega. jannada loogu bishaariyey. tusaalayaashaas waxaynu ka cadaynaynaa sida ay muhimka u tahay, qiimaha u leedahay, sharafta u leedahay alle subxaanahu wa tacaala barashadiisa iyo aqoontiisu. dhinac kale markaynu ka eegno ambiyada iyo rususha dacwadoodu iyo waxa loo soo diray, sida ibnulqayim raximah اllahu tacaala uu tilmaamayo 3 shay baa loo soo diray. wاlcilmu aqsaamu 3 ma laha min raabici wاlxaqu duu tibyaani cilmu bawsaafi اlilaahi wa ficlihi wakadalika alasmaau lidayaani. cilmiga koowaad ee cilmiyada ugu muhiimsan ee ka mida 3da cilmi ee diinteennu ka kooban tahay waa cilmiga alle subxaanahu wa tacaala in la barto, magacyadiisa in la barto, tilmaamihiisa in la barto wanaagsan, ficilada uu sameeyo waxa weeye cilmi loo yeesho. cilmiyadana kaasaa asala, kuwa kalena waa ku dul dhismayaan. marka cilmiga la helo, cilmiga labaad waa in la ogaado waxa weeye mahad celinta ilaahay loo mahad celinayo, iyo ammaanta la ammaanayo, iyo cibaadada loo cibaadaysanayo, iyo xuska la xusayo, jacaylka aynu jeclaanayno, baqdinta aynu ka baqayno, dulliga aynu u dulloobayno, hogaansanka aynu u hogaansamayno. waxaasoo dhani waxay ka dhalanayaan ta hore ayay ka dhalanayaan. sidaa awgeed ayaa waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahy inamaa yakhsha allaha min cibaadihi اlculamaa. alle waxaa ka baqa baqdinta dhabta ah dadka cilmiga leh. culimmadu waxay yidhaahdeen alcaalimuuna biاllah waa kuwa alle subxaanahu wa tacaala yaqaana. alle markay barteen ayay garteen alle subxaanahu wa tacaala xuquuqdiisa iyo xuduuddiisa waxa weeye la ilaalinayo. cilmiga saddexaad waa cilmu اljazaa, maalinta qiyaame iyo abaalmarinteeda iyo jannada waxa lagu mutaysanayo iyo jannadu waxa ay tahay, raalli ahaanshaha alle, cadhada alle, cadaabkiisa iyo waxyaabaha ka horeeya aakhara iyo jazaaga iyo abaalmarintana iyaduna waa cilmi saddexaad wey. laakiin cilmiga lafdhabarka u ahi waa cilmiga alle subxaanahu wa tacaala la baranayo. waxaa ka dhalanaya alle in la caabudo, alle in la caabudona waxaa ka dhalanaya in lagu abaal mariyo. cilmiga diintu uu ka kooban yahay waa 3daa cilmi wey.
waxaa muhiima walaalayaal markaynu alle subxaanahu wa tacaala baranno sidaynu xalaqaadkan ku caddayn doonno ee magacyadiisa aad fahanto ee tilmaamihiisa aad xog u yeelato waxa ka dhalanaya raad baa ka dhalanaya waxa ka dhalanaya cidda ugu muhiimsan ee aad danaynaysa alle subxaanahu wa tacaala inay noqoto yakuunu hamuka waaxida hamkaaga iyo danayntaada iyo waxaad ka fakaraysaa waa alle subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed waxaad baranaysaa alle subxaanahu wa tacaala magacyadiisa iyo waxyaabaha ka dhalanaya waa ahmiyadda cilmigani uu leeyahy magacyada alle subxaanahu wa tacaala waxaa ka mida alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay asmaa aljalaal asmaada weyninka asmaa alcadama alcadiim aljaliil alkabiir iyo magacyada la midka ah magacyadaas haddii aad ogaato alle subxaanahu wa tacaala waad weynaysiinaysaa waxaad ogaanaysaa alle subxaanahu wa tacaala awooddiisa ayaad alle subxaanahu wa tacaala ogaanaysaa waxaa jira magacyo ka hadlaya wanaagga iyo quruxda iyo deeqda iyo samafalka asmaau اljamaal in allaha jamiil yuxibu اljamaal waxa weeye magacyada noocaasana waxaa kaaga dhalanaya inaad ogaato wixii wanaagsanaa inaad jeclaato waxaa ka mid a alle subxaanahu wa tacaala magacyadiisa magacyo badan oo tilmaamaya ilaahay inuu naxariisto dadka inuu u dhibirsado alraxiim alraxmaan allatiif aljawaad inuu deeq badan yahay albar inuu alle subxaanahu wa tacaala dadka u samafalo magacyadana markaad ogaato waxaa kaaga dhalanaya raja inay ku gasho yididiila inay ku gasho inaadan alle subxaanahu wa tacaala ka quusan naxariistiisa inaad filato ayaa waxa weeye ka dhalanaysa waxaa jira magacyo badan oo tilmaamaya alle subxaanahu wa tacaala inuu ku og yahay alcaliim alkhabiir iyo magacyada la midka ah ee tilmaamaya alle subxaanahu wa tacaala xogogaal inuu kuu yahay inuu waxa weeye wax walba og yahay taana waxaad ka qaadanaysaa alle subxaanahu wa tacaala inuu kula socdo meel kastoo aad joogto xilli kastoo aad joogto xaalad kastoo aad ku sugan tahay in alle subxaanahu wa tacaala uu kula socdo magacyo badan baa inoo tilmaamaya markaad eegto inuu yahay shadiid اlciqaab dulbadshi inuu yahay casiiz inuu yahay iyo magacyada la midka ah ee awoodda waxa weeye tilmaamaya alle inuu awood leeyahay alle subxaanahu wa tacaala ciddii ciqaab mutaysatay inuu ciqaabayo taasina waxay ku gelinaysaa inaad baqdo oo alle subxaanahu wa tacaala aad waxa weeye ka cabsato qodobka ugu dambeeya in sha allahu tacaala markaad magacyada alle subxaanahu wa tacaala aad baranayso ee aad cilmi u yeelato waxaad ogaanaysaa magacyadaas tilmaamahooda ilaahay inuu kugu jeclaanayo allahu muxsin yuxib اlmuxsiniin raxiim yuxib الruxamaa jamiil yuxib اljamaal jawaad yuxibu ahla اljuud alle subxaanahu wa tacaala waa deeqsi dadka deeqda badanna waa jecelyahay alle subxaanahu wa tacaala waa naxariistaa dadka naxariista badanna waa jecelyahay alle subxaanahu wa tacaala latiifun bicibaadih dadka u dhibriya waa jecelyahay alle subxaanahu wa tacaala waa jamiil waa alle qurxoon wixii qurxoonna alle subxaanahu wa tacaala waa jecelyahay iyadana aaaarta ka dhalanaysa magacyadu alle subxaanahu wa tacaala ku magacaaban yahay tilmaamuhu alle subxaanahu wa tacaala ku tilmaaman yahay iyadana waxaad ogaanaysaa inaad ku sifowdo alle subxaanahu wa tacaala inuu kugu jeclaanayo waa tilmaamaha alle subxaanahu wa tacaala aynu kaga dayanayno ee laynoo baneeyey laakiin waxaa jira saynu dib ka tilmaami doonno magacyo iyo tilmaamo alle subxaanahu wa tacaala uu gaar u leeyahay isaga ammaan bay u tahay laakiin inaga munaasibinoo ma aha alkibriyaa in la isweynaysiiyo ilaahay baa iska leh cidina ku qabsan mayso idan ilaahay waa ku sifaysan yihi almutakabir weeye waana mutaystay laakiin inagu ma geyno inaynu dadka iska weynaysiina mamnuuc bay naga tahay dunuubta waaweyn baanay ka mid tahay walaalayaal
إن شاء الله تعالى حلقة كواد waxaynu ku soo koobaynay alla subxaanahu wa tacaala in la barto macnaheedu muxuu yahay alla subxaanahu wa tacaala haddii la barto faa'iidada laga helayo waxa ku duugan qiimaha ay leedahay halka sharcigu uu dhigay ayaynu insha allahu tacaala xalqada koowaad ku soo koobaynay intaynu ka gaadhayna xalqa dambe astawdicukum allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh